السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي سو دوادا هرتا وقت محايي لكن وحير بين بوبسينا إن شاء الله بإذن الله الكريم. hadda kaygaan ka imaaday kana waan soo galay maasha Allah GYL waxaan leeyahay horta barnaamij baan wadnaa hadii ilaahay idmo kan waxa weeyaan wargelin weeyaan insha Allah qof walba waxaan rabaa inuu maalinta ugu tala galo dhamaantiinba soo dhawaada nasteexo walaasha qaali soo dhawow Cabdisaaq soo dhawow Cabdiraxmaan soo dhawow عبدي رشيد سودو دماتي سودو هذا ما شاء الله محمد أحمد سودو والالكي قالي يا سلام بقرطويدا فيسبوك سودو والالكي دمانتي وإن السلام يا وحاربة إن شاء الله إن هدي إلهي أودلي حمدة مي أحمد سودو والالكي وياي عليكم السلام فايزو سودو ولا شيء قالي سكرية سودو ولا قالي دكتور محمد سودو ولا قالي أدنى دماتي سودو هذا waxaan leeyahay barnaamijkii hadii ilaahay idmo maalinta sabtida waxaan leeyahay hana ka maqnaanin hana moogaanin barnaamijka sabtida waxa laga hadlayaa waxyaalo badan oo idaan hore u maqal waxyaalo badan oo maartay aydan dhagihiinu ku dhicin dhawaaqiisa ayaa laga hadli doonaa hadii Allah awood leh raali ka noqdo insha Allah waxa laga hadli doonaa waxyaalo badan oo u baahantay wacdi gelinta bulshada Soomaaliyeed insha Allah hadii ilaahay idmo waxa kale laga hadli doonaa hadii Allah awood leh raali ka noqdo rag mas'uul oo ma aragtay ma sha Allah ma aragtay aqoon leh oo ma aragtay run ahaantii iga badiya taariikhda Soomaaliyeed ama waxyaalaha dhacdooyinka runta ama ku saalaysan xaqiiqda waxyaalaha hore u jiray ama soo jiray iga aqoon badan insha Allah ayaa hadli doona ma aragtay inkastoo la yiraahdo maxay ahayd ninka weyn ayaa la wareystaa saad inkuna uga faadaan aniguna aan uga faa'iido hadii ilaahay awood leh ayaa soo dhaw walaashay qaali ma sha Allah soo dhawow حفيظ ميا قبل سودا ولا شيء قالي محمد دمانتي سودا وهذا صلاة ويسعون الساعة بريدة ويسعون الساعة مركا إن شاء الله هدي الله أود له ورالك النقطة مالنتا أيا وياهي المسجد يكومنتيغا سو قريسا وانو مشغول اني حقيقه وانو مشغول وارالي اهانيسا السلام عليكم يو وحي ما عرفتي هذا سؤال اما جواب مش متالو وورغلين وأسي شيك دادكا سي أسي أغادان هبينك السبتدا هدي إلهي إذمو نينكي والبو أو ما عرفتي ربا هبينك السبتدا إنو نغلا قايب قاتا برنامجكن وحو نقون دونا برنامج حساسية oo kaale arag oo la isku soo dabariday oo waxaan ku leeyahay dhagahaaga wax badan aad dhii doonto war waxna may jireen mise hadayba jiraanba waa su'aal iyo jawaab nin walbowna fikradaada ayaad ka dhiiban doontaa waxaad uga dhiiban kartaa qoraal ahaan waxaad uga dhiiban kartaa live ahaan sida aad adiga jeceshahay daawadahayga meesha ku jira ama taageerahayga insha Allah sidoo kale maxay heeday iga sheegay عبدي رشيد ولكن سودو دالمر ولكن سودو أديكونا سودو كله بشير سودو كيس سودو ولا شغالي دمانتي سودو هذا أنا مقعدة سوكو كوبين ما شاء الله بان الله هاي سودو هذا ياسمين سودو
muumin miya soo dhowow dhammaantiinba soo dhowaada magacyada hadda ii gooyayaan la qosliyaa caadi waayo dhib ma laha haye nimco thank you waa kule walaasha qaali marka waxaan leeyahay barnaamijkaasi waa noo bilaami doona habeenka sabtida haddii allah awooda leh uu raali ka noqdo dhammaantiina waa inaad kasoo qayb gashaan waqtiga haddii aad time haysaan haddaydaan time haynina dhib ma laha mar kale ayaad nagala qayb qaadan doontaan haddii ilaahay awooda leh uu raali ka noqdo laakiin waxaan jeclaan lahayn habeenkaa inaad run ahaantii aad noo sii sheergaraysaan oo maaragtay nagala qayb qaadataan oo fikradihiina macmacaan ee wanaagsan iyo qalbiga saliimka ah inaad nagala qayb qaadataan haddii ilaahay idmo marka waxaan leeyahay insha allah de wix tagay tigsimaad male dadka dhahaya maxay hayday insha allah haddii ilaaha awooda la raali ka noqdo waxa weeyaan qalbiga saliimka ah ee wanaagsan hana laga qayb qaato insha allah haddii ilaahay idmo waana idin salaamayaa waayahay waxaa layidhi meel u baahan hee uma baahna moogtahay macnahayga waa fahmi kartaa markii su-aalaha qaarkood lagu soo qoro meel u baahan hee uma baahna macnahaga waad iska fahmaysa hadda shukriyey baad tiri hee haddaan ku idhaaho qalbigay u wanaagsan tahay moogtahay laakiin haddaan de waad fahmi kartaa macnahayga magacayga ha igu yeedhin weeyaan ma garatay marka meel u baahan hee uma baahna iga baraya anaa iskale marka aan fanayaan iska ahay waa ini salaama waa ini jeclahay maasha allah because walaalo qof markuu hadal macna daraa kuu soo qoro inaad tiraaho weeyaan hore looga sii socdo dib ha noo celina hore noo wad weeyaan sheekada habeenka marka insha allah haddii allaha awooda la raali ka noqdo inaan maxay ahayday aad nagala qayb qaadataan qalbiga wanaagsan niyada fiican hadalka wanaagsan ma aragtay maskaxda wanaagsan aad nagala qayb qaadataan habeenkaa waxay noqon doontaa mariya marumba maan taaganahay mise waan fadhiya kuraasta yaad ka daadanaysaa waa inaad kuraasyada dhinacyada ku dhigtaan habeenkaa anaa inii soo bandhigaya daadiyaha barnaamijka anaa noqon doona aktaraduna waad arki doontaan yaa atrishada ah yaa aktarka ah abo iga dheh yaa marka maasha allah habeenkaa waxa weeyaan caawa iyo caalamkay noqonaysaa habeenkaa ma fahantay wixii cusubba caalamka jecel yaa salaam wakaas aan xaysiinta kolle kuma fiicni laakiin waa isku dayayaa insha allah waan ku fiicnaan lahaa inaan noqdo atrishada laakiin waxaa laygu yidhi adi qaybta atrishada kuma fiicnidee cameramaankaad ku fiican tahay marka qaybtaasaan aniga qaabilaya habeenkaas yaa laga maqnaan yaa laga moogaan ikacay dhiigay kacay sacabka iyo tuma ma aqaani waxbe maasha allah nasteexo bum bay tiri wallahi billahi maasha allah walaasha qaali marka habeenka waxa weeyaan looma kala harayo yaa looma kala harayo habeenka waxa weeyaan caawa iyo caalamka ka nasiib ka nasaar yaa salaam wixii cusubba caalamka jecel kasi darinta waxaa imanaya happy new year baan gelaynaa marka habeenka waad nala raaxaysan doontaan maxaa barnaamijku markaa ku saabsan yahay dee lama hormariyo degdegsiima hadduu door dhalo kaatiyana kiish lacaguu dhalaa iga barana marka waxba yaana inii boobsiinin waxba yaana warka inagu badinin habeenkaas waa caawa iyo caalamka abo maxaa haysaale sheekada way soconaysaa marka habeenkaa ha ka maqnaanin hana ka moognaanin atarishooyinka iyo aktarada iyo maaragtay brofeserada habeenkaa waad la kulmaysaa madaxtooyada boqortooyada dhammaan iga baraabo waxaa kuudha habeenka ha ka maqnaanin hana ka moognaanin insha allah biidnillaahi kariim ininkan waxaan iniga rabaa
هذا الكمعان فكرة معان قلبي سليم الذهب إن يدادا كتشرا إنا بنانك صوتكتو يا ونوع أفلقادو ونوعي ونوع قبيل ما فهمتين هبينكا wax badan ood ku raaxaysanaysaan ayaad arki doontaan wax badan ood ka murugoonaysan ayaad arki doontaan waa la isku jira badu waa isku dhannan yaa salaam badan ka tag oo kan kale aad badu waa isla badile soo milix lama aha marka waxa leeyahay insha Allah habeenka iyo caalamka habeenka waa la shidan yahay abo talo maxaan inay soo wadaa talo habeenka maxaa dhici doona talo habeenka maxay noqon doontaa waa laga yaabaa inaad ku qanacdo waa laga yaabaa inaad ka helweydo ilaan bila aadanku isku dooq maahe nin walba dooq buu wataa nin walba dooq buu leeyahay qof walba ayba dooq buu leeyahay laba uur hooyo ka soo wala baxdayba isku dooq ma aha marka waxa weeyaan waxa laga yaabaa inaad la dhacdo oo qeyra jabaanto inaad tiraaya wax waaba nagu ciyaartayba marka habeenka waa ha ka maqnaanin hana ka maqnaan barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay lama horeysiyo wanay hadalku ku iri degdegsiima hadduu door dhalo kaadsiina kiish lacagu dhala iga baro macnaheega waa fahmi kartaa run ahaantii waxaa la dhahay geedka orod ku korto orod baa uga soo degtaaba raaxa markuu dhahaan ma fahant marka barnaamijkani ha ka maqnaanin habeenka adaa arki doonee indhahaaga wax saari doonay ha ka maqnaanin gacalka ha iska boobid waxaan leeyahay habeenkaas yaa salaam shukriyey yaa salaam waxaan leeyahay noolaada jiro jooga Soomaaliya ha noolaato waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato all of Somali we are Somali Soomaaliya ha noolaataa leeyahay cadowgeega ha jabo whoever Somali ha noolaataa leeyahay noo qabiil marka waxaan leeyahay maadaama aniga Soomaali ahay Soomaali dhan ahay noolaato cadowgowna ha jabo habeenkaas iyo caalamka talo maxaa dhici doono daadiyaha barnaamijku waa aniga iga baro marka habeenka insha Allah waa aniga iyo daadiyaha barnaamijka oh yaa lovely marka way salaamaya waa jecel always maanta waxa jeclaaday inaan inila farxo oo maartay inila qoslo oo maartay inay maaweeliyo dad badan baa i jecel hadalkayga jecel barnaamijkayga jecel waxa la inta ay jeceshiin in ka badan ana in jecel ikacay digay kacay ya waxa weeyaan aniguna waa in jecelahay inunkuna way jeceshiin in noolaadaan leeyahay cadowgiin ha jabo amidaha waayahay waxaa la dhahay hadal badan haama buuxsho aliyaa biyo ii dhiibo wax ag jooga malaha hal galaas oo biyo ku fiicnaa la moogta dhib malaha anaa kici doono galaas biyaa soo qaban doono thank you wallahi dad ay igu qabtay biyaa isqabooji yaa marka anigu waxa weeyaan waan jecelahay inaan habi inaga dhigo inaan inaga qosliyo inaan ila faraxdaan horta qofkii stress hayay halkan soo gala waa no stress idilay stress no stress aad noqonaysaa dad halkan soo gashay beeshkan stress dhan ma arkaysid waxaad noqonaysaa happy kaliya la waxaan ku yiri nafta maartay massage free baa ku soconaya ahlan bik ya xabiibti waxa weeyaan ma sha Allah anaga massage ku bilaabayna massage-kayga wax kale ma aha waa sheekada macaan ee niyada u roon wixii qalbiga u roon ayaa naftana u roon ya salaam hadal macaan ayaa qalbiga qaboojiya aniga ii qabooji hadalka macaan ayaa qalbiga qaboojiya marka run ahaantii haddii hataa qof caayo aflagaadood ka xumaanaysa waxaad leedahay qofku hadal xumaa marka hadalada fiican ee wanaagsan anaad iga baranaysaa maasha Allah soo dhawaada cadowgiin ha jabo noolaadu jiro jooga Soomaali ha jirto ha joogto intii ka xuna ha dhacdo down midda labaad waaya maasha Allah jeceliya
mid baa hadda tira jecliya gaalada jabkooga jecliya naag baa ku gabayday moogta marka waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed sidan hal la isku dhaamo qalbiga wanaagsan hadalka wanaagsan yaad ugu gargaaraysaa mataqaana naftaada hadalka wanaagsan aduu kugu maqan yahay hadalka xunna aduu kugu maqan yahay hadal wanaagsan oo afkaaga ka soo baxa maxaa kuugu jira sadaqo iyo wax wanaagsan hadalka xun ee afkaaga ka soo baxa maxaa kuugu jira wax musamaha marka hadalka fiican sidiisaba qalbigu dawaya okay waxaan rabaa inaad ii soo saartaan love iyo sulka insha Allah دمبساكو إنا نيجو قسليا أصاقلي ما شاء الله أنت إجعل بابضن الله جعليا لوفك إيسو سارة أنت إجعل إلا شكري هجوكتو وانا شكري قبوية I'm here نولادا چيرو چوغا يا إيسو سارة نولادا we love you mashallah thank you وانا شكري قوية ولاشين هنولاتو مقعينو هجوغو انتي نعب داون انت لابتا استابتا داون انت قيلسا داون انت قبيلة كشقيسا داون وحول بداون هالنقضان كسعدا مركا وحان ليهاي صومالي وامت وهل قرى بدح مدح كما مارنتو مدحنا بدح كما مارنتو I love you بان ليهاي ما شاء الله نعم أنا قويان ليهاي of course إما تشددو قبل قويان هاي صومالي واي صومالي قبيل كيغا I love هنولادو هجوغو صومالي هنولاتو مركا we are same there is nothing difficult me and you remember that yes ما شاء الله نولادا yes that's true Somali is Somali there is nothing difficult or different waa isku wala mid ما شاء الله thank you so much انت يجعل بابدن انت ينعب هيراتو ان شاء الله وحويان ددو حجرة مقع قبويها النعب أنا قبوية أنا بنتي قبوية عربي عتاكو الله عقلي وضوضاني مركب علي قبوية هجوغو السلطان كيغا هنولادو وحالي هاي قدومية هايغا هجوغو هالقمدا ميشا جوائل هجوغان دمان ولا لدي وحالي هجوغان ما شاء الله برنامجك هبينكا يا لغا مقناني هبينكا حيسيس واني صهر مريني لكن برنامجكاسي وحو بلامايا على طول وانو قريب وانو مرتي هوريبت كي جلسو حالي منينكي واي مفهمت هبينكا يا عالمكا وان كل مينا ما شاء الله dadka dhaaya gabooye ha guuleysto gabooye ha guuleysto ha joogo waa dad Soomaaliyeed waa shacab Soomaaliyeed wax ay ka duwan yihiin malaha waxaan u leeyahay ana gabooye waxaan u leeyahay dadka isqariya ee magaca ka carra ayaan rabaa inay magacooga kor u qaadaan igama qurux badna igama fiicna igama wanaagsana walaashood baanahay waan waansanayaa waan soo ceshanayaa waxaan ka soo celinayaa wadada qaldan waxaan ka soo celinayaa hadalka qaldan waxaan ka soo celinayaa xumaantada waxaan tusayaa wanaaga uu dadkayga iyo shacabkaygu leeyahay gaar ahaan markaad magacaan aad ka roorayso xasuuso dib isku fiiri waxaad eegtaa Soomaali baad dhaqankii baad leedahay diintii baad haysataa ashahadadii baad haysataa Allah subxaanahu qaadir ku uumay
waad cuntaa waad cabtaa cidna ma daba fadhidid qof kula mid ah oo sidaadoo kale ah oo walaalkaa ah oon isaguba qabiilkaaga sheeganayn waay oo qabiilkiisa u sheeganaysaa ii sheeg waay damiirkii aaway dadnimadii aaway dadkaygii meeyey raggayagii aaway dumarkayagii aaway waar wixii dhacay way dhaceen wixii joogiya maanta wixii hore tegay tag waxa joogiya maanta caalamka aan raacno koraynu isku soo qaadno dadka wanaagsan ilaahay baa jecel gabooyo waa masaakiimo waa dad dhib yar cidna ma dilaan cidna wax ma yeelaan qofna ma xasuuqaan waa dad masaakiina of course ilaahay baa jecel dadka ugu wanaagsan ee ugu dunta macaan ayaa tahay qabiilkaaga maxaad ku qarinaysaa nasab haddii la dhaho qof walba alla intuu qofka kale uga dhow yahu uga nasabsan yahay nasabadu waa sidaa marka waxaan leeyahay dadkaygow kaca damiirka ha iska dilina wixii tagay tiigsimaad male aynu kor isku qaadno aynu hadalno aan codkeenna kor u qaadanno calankeenna ha la aqoonsado dadnimadeenna aan soo bixinno annagoo dowlad kama soo hor jeedno ee waxaan raadinaynaa isku duubnida walaalnimo waxaan raadinaynaa isku tagga soomaaliyeed ma raadinayno kala tegitaanka soomaaliyeed soomaali markuu dhib ku dhaco waan ka naxnaa waanu ooynaa ka annag waa walaalahay waad ila dhalatay walaashay baad tahay qof muslinaad tahay ila dhiig baad tahay ila dhaqan baad tahay waxaan markaa kugu nacayaa maxay tahay inaan ku naca anay doqonnimo ii tahay because walaashay baad tahay xumaantaada ma ogoli dhibkaaga ma ogoli silcaaga ma ogoli ani markaasaad xumaan iigu quudhi anoon adigaba xumaan kuu quudhayn adu saad xumaan iigu quudhi taan ka hadlayaa taas ah tolkay oo kacaan leeyahay bulshada soomaaliyeed gees ka raacaan leeyahay iska dhaafa dibu socodka hore u socdaan leeyahay isu soo qaada adduunyada innaga haddaanaan iswadin qof ku wadaaya ma laha war tolkaa hadduu ku gabay afka ayuuna ku gabin war hadday maxay heeday gacani ku bidixayso gacantaada midig uga soo go ku xoogso gacantaada midig waxaad ku soo heli karteed af ku soo dhexsan karteed gacan ku soo dhexsan karta qabso adoon cidna dilin adoon cidna xasuuqin adoon qofna waxba ku samaynin ani markaa waxaan uga socdaa wax kale ma aha waxaan leeyahay dadkaygow kaca indhaha furta aan hore u soconno yaanaan dib isku reebin waa inaan noqonnaa dad isku duuban isku duubni ayaa meel lagu gaadhaa wadajir baa wax lagu qabsadaa war xabadda timirta haddaynaan wala cunin goormaynu heshiinaynaa goormaan horumar gaadhaynaa waxba dhulka ha fiirinin ha eegin wixii sabankii ee eeg waxa maanta jira waxaad eegtaa ba maanta heerka aad joogto waxaad fiirisaa dariska kuugu dhow waxa uu ku dheer yahay fiiri waxaad eegtaa dariskaaga waxay kaaga fadli badan yihiin raadi marka adaa runta ogaanaya ka-anna gurigan aad galayso waxaa laga yaabaa cibaadada alla ka cabsida hadduu gurigaasi uu leeyahay waa intaas ku badan tahay uuna gurigaagu uuna lahayn intaasaa lagaaga nasabsan yahay laakiin haddii uu gurigaagu uu yahay guri ma aragtay aan allena looga baqan allena lagu caabudin markaa nasab ma tiid qabiil walba ahaw ciddaad dooni ahaw marka nasabnimadu ma aha tu laabta kaaga taalla ee waa tu alla subxaana qaadira kuu qiri doono waa haddaad allahaaga ka baqato waa haddaad allahaaga ku xidhan tahay waa haddaad allahaaga u caabuddo ooduu gasha allahaagu inuu allahaaga yahay oo diintaada aaminsan tahay bal markaa
dariskaaga intaad u tagto fiiri waxay ku dheer yihiin ilmahooga fiiri ilmihiisu muxuu ku dhashay 9 bilood kaaguna 9 bilood waayahay qofkan waa dariskaaga qabiilkaaga ma sheegto waay oo qabiilkiisa u sheeganaysaa okay ninkan hooyadiis may ka fiicanta waa maya aabaha mu ka fiicanya waa maya qofkan adi mu ka fiican xisaabtan iska dhaaf ma artay dib socodka iska dhaaf indhahaga furo hore u soco marka waxaad ku fikirtaa nacam qofka bili aadanka farqiga inee dhaxeeya qofkan waa Soomaali ama Soomaali baa tahay qofkan waa qof caadi ah oo de ilaahay lixdiisa la dhameystira qaar aan dhameystirnayn baa jira ilaahay lixdaadi la ku dhameystiray ee ku fiicneeyay ee ku wanaajiyay ee quruxda face-ka ma aha Allah ma ku dhameystiray indhihi ma ku siiyay laxaadkii ma ku siiyay cagii ma ku siiyay caafimaad ma ku siiyay adoo intaas oo dhan bahaysta ma Allaha caasiyaysa qabiilkaaga aad ku faani lahayd miyaad ka faanaysa ilaahay baad caasiyaysa ilaahay baad ku xumaynaysa ilaahay muxuu ku yiri nasabkaaga ha qarinin ee ku faan nasabkaaga waa inaad sheegtaa noloshaada nasabkaaga ha qarinin jaahilnimo ku tahay doqonnimo ku tahay nasabkaaga ku faan waay ku fikir waay on dadkan qabiilkooga aanu sheeganaya waay on u sheeganaya ani qabiilkayga intuu laayahay war qabiilkan aad ka rooreysaan ma xisaabtanteen dumar iga waaweyn rag iga waaweyn ayaa sheegtay qabiilo kale ubadkiinni baad ku korinaysaa war doqonnimada iska daaya niyad xumada iska daaya calool xumada iska daaya dad badan baa kulli markay maqlaan hadalkaasi gubaya laakiin sorry baa ina leeyahay wax walba uu dhacaa laakiin waxaa ku leeyahay qabiilkan gabooyi waa dadka ugu masaakiinsan Soomaali markii loo eego waa dadka ugu dhibka yar Soomaali markii loo eego waa dadka aan waxba xasuuqin Soomaali markii loo eego dadkani ku xisaabta wanaag ay leeyihiin fiicnida ay leeyihiin waxay yihiin ku xisaabtan isweydii nihoon dadkani maxay qabaan oo uga rooraa waxaa looga rooraa fool xumo xumaan ay leeyihiin ceeb ay leeyihiin ma aragtay fawaaxish ay leeyihiin wax aan bila aadanka ku jirin oo leeyihiin wax aan diintu ogolayn ay leeyihiin ku xisaabtan maxaad qabiilkan uga rooraysaa dad annagoo kale nagu jira ani maad iga roori maanta anoo shukri ah oo walaasha ah laabtaad igelinaysaa qabiilkaaga wana waa sida inaad laabtaad geliso weeyaa inaad ka roorta ma aha marka qabiilkaaga bal isweydii maxaan uga rooraya qabiilkayga muxuu qabaa ceebtuu qabaa xumaantuu qabaa waad isbahdilaysaa annagii baadna bahdilaysaa markaad qabiilkaaga ka roorto dumarkiinni baad ka dhigaysaa waxaan jirin raggiinni baad ka dhigaysaa waxaan jirin waxaad naga dhigaysaa dad aan qiimo lahayn marka qiimo isku yeel dadkiina markaad aduu qabiilkaaga ku faanto ayuu qabiilkaaga kor u kacayaa markaad qabiilkaaga sheegto ayuu kor u kacayaa marka waxaan leeyahay hadal badan ha ma buuxsho dad yahow indhaha furta kaca qabiilkaygu ha jiro ha joogo Soomaalina ha jirto ha joogto laakiin waxaan leeyahay ragayga waadna gabteene naga daaya ceelko indhaha furta yaa khibilla caleeg halla barnaamijyada ka hadla yaa hadla ragayga hadla awe ragayagi waraaway haliyadayadii waraaway kuwan ku faanaynay waraaway libaxyadayadii war miyaydaan dhiig lahayn war miyaydaan jirka dhaqaaqa lahayn war meeyay aqligii waraaway damiirnimadii waraaway dadnimadii waraaway ehelnimadii waraaway dhiigii waraaway halkaad ka baxdeen xageedaadeen kuwaawaya annagoo dumara hadlayna annagoo dumara halka soo fadhiisanayna war halkeed ka baxdeen alla waadna gabteen intaad qabiilo kala sheeganayseen ee daba fadhideen ayaa dib noo reebteen alif reeban alla ilaahayna ka baqa qabiilkiina kor u qaada kufaana waxaad tahay hadal badan haan ma buuxsho markii xiliyadaasoo kale tahay waan kululaadaa waxaan la kululaadaa inta rag gabooyo ku jira gurigooga ma dhaafsiisna yaa khibilla calig indhaha furta naga daaya xumaantan guryihiina ka soo baxa
kor isku qaada magaciina dadnimadiina kor u soo qaada hurdadan ka baxa sariirtan ma aragtay inii taala iska dhiga ka soo baxa yaynaan noqon kuwii aan guryahooga dhaafaynin nin walbaba heer wuxuu ku gaadhaa markuu gurigiisa ka baxo example haddaan maanta dhan gurigaygii dhex fadhiyo yaa ijaarka iga dhiibaa yaa waxii qabana ku fikir waxyaalo yar ku soo qaado nimankii nin walba ninkiisa hore u wada annagu dumar baan nahay raggiina wadi lahaa dib baa u qabanayaan wadnihii baa bahal ah wadnihii baa ka laalaada ka soo dhacaya war xagad ka baxdeen war annagii dumarka ahayn baa wadnahayo ma laalaadin maxaa kuwiina laalaadiyey maxaa iniga dhiga dhuljiifka yaa kor isku soo qaada oon wax jira iska dhiga hadalkiina meel buu gaadhayaa ininku kor isku qaada qabiilada ku dabagabanaysiin iska daayaya bilaa caleeg ha ku dabagabanina qabiilkiina kor u qaada nin walba ninkiisa isagaa ku faana ani haddana adi maanta kugu faanin qof kugu faanaya ma laha gabooyo shalinina ma aqoonin laakiin maanta nin walbaa garanaya waxay yihiin dadkay yihiin wanaagooga macaankooga markaan dhaho dadkayga cidna ma kufsadaan markaan dhaho qarax markuu dhaco ee la yidhaahdo gabooyo maaha waan farxaa warkaa ku tusaale qaado damiirka hoosta ku dhigaya maxay tahay because waxaan ugu farxaa ma jecli dadkayga inay wax laayaan ma jecli dadkayga inay dad masaakiina laayaan ma jecli dadkayga inay bilaa macani dad ku laayaan ma jecli dadkayga inay caruur yaryar agoon ka dhigaan hooyo aabba ay laxaatiraan ma jecli waxaan jeclahay dadkayga inay dadka hore u raacaan inay hore u socdaan dadka ugu wanaagsan ee ugu dinta macaan baan nahay ma kufsanno gabdho ma dhacno xoolo dad ma qarxino dhul bal kufaan magacaasaad ka rooraysaaye dadka ugu wanaagsan ee ugu macaan ayaan ka dhalanay markaan leeyahay dadkan Soomaali walax kale ma dhaho dadka Soomaali ma dhahay kitaabka Quraanka kuma taalee ma kitaabka Yuhuud ay haystaan mise kitaabka Fircawn bay la soo baxeen wa ana isweydiiya marka Soomaali waa Soomaali inta diidan waxba naga ma galin laakiin inagu aan isqaadno inaga aan isnoolayno inaga aan dhulka iska soo qaadno dumarkeenu dumarkooga la mid yihiin raggeenu ragooga la mid yihiin laakiin inaga hoos isku dhigayna inaga iska dhigayna dad aan waxba ahayn inaga iska dhigayna dad aan jirin oo joogin yaa qaadno aan istoosino keena tamarta daran aan kor u soo kicino gacmo wada jirba wax ku gooyaan waxbay nooma tarayso ma aragtay daciifnimada waliba waxaan rabaa ragaygu markay hadlayaan inay itusaan waxaan muddo tabaayay ayaan maanta helay inaan idhaahdaan rabaa taasaan ku ooyaa marka waxaan rabaa ragayga ma aragtay khaas ahaan ragayga gabooye dhulka iska qaada naga daaya daciifnimada na tusa raganimadiina guryihiina uun ha ku eekaanina ka soo baxa guryaha codkaaga waa loo baahan yahay inaadeer jiirkaygiyow dhiigaygiyow dheecaankaygiyow kaan la dhashayow walaalkayow adaan ku leeyahay ka naga daaya maalin walba maanu xanaaqaynaa maanu ooyeynaa naga daaya xaggiinaan ka licanaa halkiinaan ka liidanaa nakiciya hadal badan haan ma buxsho wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jannada noo balama dhammaantiina saasaan iniiga tegaya